بسم الله waxaa soo yeedhaysa akhbaar aada u xun oo kasoo yeedhaysa xuduuddan u dhexaysa labada ummadood ee soomaalida ama labada shacbi ee soomaalida iyo oromada in saddexdii beri ee u dambeysay ay ka dhacayaan dhacdooyin aada u fool xun oo dad badan oo soomaali ah guryahoodii la gubay, qaar badanna la soo qixiyey, qaar badanna la laayay. arrintaasi waa qorshe waxaan is leenahay EPRDF ay ku lug leedahay. maamulka dabaqoodhiga ee oromaduna hadda inuu u dhaga nuglaaday baa ka muuqata qorshayaasha huwanta muxuu ahay EPRDF 27 u dambeysay sano ee u dambeysay taariikhda geeska Afrika. ururka OPDO wuxuu ahaa gudinta lagu gumaado shucuubta Soomaalida iyo Oromadaba ee ay huwanta EPRDF ku shaqaysato. eeda waaweyn baa u yaala, taariikh mugdi ah baa u taalla. kolkoodii horena haraagii askartii maxaabiistii mingiste ay Eritreanka iyo TPLF ka qabatay ahaay. taariikh xun bay leeyihiin. maantana waxay ku siin adag yihiin inay labada ummadood ee walaalaha ee Soomaalida iyo ama labada shacbi aan yiraahdo waa hal ummad, laba shacbi oo Soomaali iyo Oromo la kala yiraahdo deris ah, dalkoodu is dhex daadsan yahay, dadkoodu is dhex daadsan yahay, isna dhex daansanaan doono, dana ka dhexeeyaan kana dhexayn jireen. shacbiga Soomaalidu walaalnimo u haya, waana inuu hayo. Oromadu waa inay qadarisaa iyana dadka Soomaalida ah ee deegaanka balbaleyti iyo deegaanada la iska soo dhexgalo iyo dadka is dhex degan laba dhinac ba jira. waa inay maamuladan EPRDF tu samaysatay waa inay ka digtoonaadaan inay dadka shacabka Oromada ama shacabka Soomaalida la taargadgareeyo. marka anagoo ka xuntii horena waan ka hadalnay dadka Oromada gaadhay. waxa weeye maamulka OPDO waxa u yaala su'aalo waaweyn baa u yaala oo 27 sano u dambeysay huwantan isbahaysatay EPRDF lagu magacaabo ee shucuubta weeteenaysay gudunta ay isticmaasho waxay ahayd OPDO. marka maantana OPDO waxay ku kordhinaysaa taariikhdaas inay isku dirto ama ay colaadda ku wajahdo dadka Soomaalida. aad baan uga digaynaa. waxaa kale oo jira dulmiga ay dadka Oromadu tirsanayaan iyo xorriyadda ay doonayaan dhanka Soomaalida iyo bariga iyo Jigjiga iyo Muqdisho iyo Hargeysa midna kama soo jirto. dhinaca iyo waxay jirtaa Addis Ababa, wadada xorriyaddooda gasha galbeedka ay u baxdaa. xagga iyo Finfin iyo Addis Ababa iyo Abyssinia waxay haysato u baxaa. marka in dadka Oromada halgankooda iyo hamigooda iyo maslaxadooda iyo la marooriyo oo dhinac kale loo soo jeediyo waa dana guracan weey. marka dadka Soomaaliyeed waxaan ayaan ugu baaqaynaa dadka Oromada inay walaalahood yihiin, inay iskaashadaan ay tahay, in Oromo Soomaali u baahan tahay, Soomaalina Oromo u baahan tahay, ay ka dhaxeeyo xiriir iyo dhaqan iyo wada noolaansho iyo isguursi iyo wada deganaansho iyo taariikh mid ah oo ummad ku shitiga wada yihiin, ay ummad islaam wada yihiin, inay iskaashadaan ay tahay. marka waxaan ka digaynaa dadka aan fiirada dheer lahayn ee dadka Soomaalida colaad ku wajahaya ama Oromada ku wajahaya. waa mahadsantihiin.